بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بان إدين سلاميا هبين وناكسن هدي هبين تهاي مالي وناكسن هدي مالين تهاينا إنك أو ما كسي وضنين هالكينان إن واسكو داوين تدرتا يعذر هذا سامية شركة هذا ما أنت وحين كهضلينا إن عذر dadka ku dhaca intooda badi oo ku dhaca loo yaqaano cirqi nasa dadka inta badan waxa isku khaldaan cirqi nasa iyo cirqi nisa cirqi nasa af carabiga waxa weeye nasa waxa weeye waa ilowshiyo waxaan loogu bixiyay cirqi nasa waa cirqina ilowshiyaha macnaha marka uu qabto awoodda nabarkaasi waa aad iyo aad buu u xoog badan yahay sidaa darteed qofku wax kasta uu ilaabaa aan ahayn nabarkaa haya marka cirqa nasuhu wuu kala duwan yahay sababta iyo magaranaysaa iyo xoogga intaba asbaabteedu wuxuu ku samaysan yahay uu ka soo baxa halkaa dhabarka magaranaysaa halkaa uu ku dhamaado adhaxdu ku dhamaato halkaa wuxuuna maraa halkaa bowdada xaggeeda dambe ilaa iyo xagasha dambe ilaa iyo ciribta ayuu ku dhammaadaa waana casabka ugu dheer jidhka bani aadanka waxaana u sababa cirqi nasaha kasoo bax uu ka soo baxo lafaha iyo waxa loo yaqaano carjawga ku dhex jira xubnaha adhaxda marka ay meeshooda ka soo baxaan ama ay ka soo siibtaan ayaa laftu waxay qabataa casabka ama neerfka sidaa darteed ayuu qofku xanuunka u dareemaa waxa laga yaabaa marka hore inuu dareemo nooc magaranaysaa sidii magaranaysaa kabubi oo kale inuu sidii meesha inay magaranaysaa bench oo kale inay yani malaha bakti inaanu dareemayn hadhowtana waxay noqotaa nabar xanuuna ilaa iyo halkaa barida halkeeda dambe bowdada buu marmarka qaarkiid sii maraa halkaasuu sii maraa ilaa uu gaadho hadhow cagta hoose ilaa uu xagga hoose gaadho marka waxaan u malaynayaa halkaasuu ka bilaabaa waa ka halkaa ka bilaaba halkaa dhibicda cas ee aad aragtaan halka leenka jaallaha uu soo marayna waa neerfkii saasuu u dhaadhacaa qaybta midigta haddaynu eegno dhulka uu dhinaca midigtu waa halka uu maro khadka cagaarka ah waa dhulka uu maro casabku neerfuhu ilaa iyo halku ku dhammaado dhanka bidixda lugta bidixda ee leenkan casi marsan yahayna waa dhulka aad dareemaysid nabarka aad dareemaysid marka uu magaranaysaa ay laftu qabato neerfka ama qofka ay macnaha si qalad u fadhiisto okay waxaa jira cilaaj loo yaqaano toobinka inta badan dhulka laga toobo cirqi nasaha waa dhinaca aynu aragno xagga bidix inaga xiga labada dhibceed ee luqunta hoosteeda iyo labada dhibceed ee halka weriga ah ama laf dhabarta luqunta 3 dhibcood ayaa laga toobaa halka dhabarka ilaa adhaxdana waxa laga toobaa 5 dhibcood halka dhinaca bidixda waa laga yaabaa yani macnaha inay daawooyinku inay cudurro badan ay ka daweyso toobinku adigoo toobinku uu daweynayo waxyaabo badan oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri ummadayda waxaan kula dardaarmayaa toobinka iyo malabka iyo magaranaysa gubista marka toobintu walaakin waxaa jirta waxyaabo badan oo kale oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu inagu ballamiyay oo uu yiri waa ka cilaaj macnaha sida ruqya marka waxay yiraahdaan culimadu law kana shifaa'u في الرقية لما كان رسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بشطفة موس أو رشفة عسل أو كيب النار وأنهيكم عن وحنا على سنين ضبكة
marka waa weligiiba calayhi salaatu wasalaam cilmiyan markii uu ummadiisa uu wuxuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kala hadli jiray mabda ah saqaf cilmi ah oo ah calaykum bikada wa kada calaykum macnaha waxa weeye marka af Soomaaliga loo tarjumo waxa weeye waxaad ogaataan malabka inaad cabtaan, waxaad ogaataan ruqyada inaad isku akhridaan quraanka, waxaad ogaataan inaad macnaha istoobtaan, waxaad ogaataan inaad magaranaysa aad gubtaan inkastoo uu gubistu oo ugu dambeysiyay. marka waa sidii xadiisku sheegay uu yiri calaykum bilkam'a. marka aan ku soo noqono casabkii cirqanasaha dad badan baa soo weydiiyay yiri cirqanasa sidee baa loo cilaajaa. marka cilaajkiisu waxa weeye toobinka markaanu ka gudubno xageena waxa la sameeyaa oo way xadiis badan ku soo arooreen liyatu shaahin arabiya. liyatu shaah waxa weeye barida idaha. marka barida idaha saddex qaybood marka loo qaybiyo qayb ahaan ayaa la shiilayaa, marka la shiilo ayaa qofka la cabsiinaya qayb ahaan. liyatu shaah arabiya ma garatay oo cuntay bahalka loo yaqaano القسط والقيسون dhirta cuntay. marka waxaa jirta oo kale barida idaha oo dhan ma aha waxa laga hadlayaa ee cirqanasaha lagu daweeyo waa waxa loo yaqaano qurux joogta ama lafta yar ee ku dhex jirta barida ayaa la soo saaraya, waa la shiilayaa, iyadaana qofka la cunsiyaa, subaga idahana waa la mariyaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.